1991kii dagaallo sokeeya ayaa dalka Soomaaliya ka bilowday marxalado kala duwan ayaa la soo maray burbur badan baa dhacay dhib badan baa la dhacay laakiin intaas oo dhan waxaa jiray dad qalin iyo waraaq haystay oo la socday dhaqdhaqaaq kasta iyo dawlad kasta maxaa qaldanaa maxaa saxsanaa shakhsiyaadka magaca runta loo sameeyo oo ah kuwa halganka soo maray iyo kuwa inta ay dawladahaasi jireen oo maanta aan joogno 2019 waxaa jira kuwa ku sifoobay wanaag iyo horumar iyo fiicnaan oo bulshada u adeegay intii karaankooda ah taariikh fiicanna ka tegey oo dhintay waxaa jira kuwa taariikh mugdiga ka tegey waxaa jira kuwa taariikhda mugdiga ka tegey in ubadka ay dhaleen ay marka ay ahayd inay ka badbaadiyaan magaxumada maxaa yeelay waxaa imanaysa wiil iyo gabar waddan looga hor yimaado yaa dhalay hebel iyo hebel waa kii waddaniga ahaa ee fiicnaa ee ahludiinka ahaa iyo waa kii gumaystaha u adeegi jiray dalka Soomaaliya dawlad kasta oo jirta waxa ay leedahay mucaarad sida adduunkuba uu muxaafid iyo mucaarad u yahay waxa mucaarad loogu yahay dawlad kasta oo jirtana waxa weeye iyadoo loo arko khaladaad inay jiraan xagga hoggaanka oo mucaaradkaasi uu doonayo inuu saxo mucaaradnimaduna waa mid la doonayo in wax lagu saxo wax lagu hagaajiyo laakiin ma aha in wax lagu dhibaateeyo qofka isagoo mansabka fadhiya ama ha noqoto dawladdii 60kii bilaabatay ama tii militariga ama kuwii ka dambeeyey kumeel gaarka ama kuwa iminka federaalka ah Soomaalidu ma fahamsana mucaarad iyo muxaafid shakhsiga markaa hoggaanka ku fadhiya ayaa loo arkaa inuu dalka iska leeyahay mucaaradnimadiina waxay noqotay in iyadoo qofka lagu xumaynayo ama lagu fogeynayo in dalka qadiyadiisa dhibaato xoogle la gaarsiiyo dadka inta badan waxa isaga khaldan wadaniyada Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya xuduud ayuu leeyahay dhinaca bariga ah iyo dhinaca badda wuxuu ilaashanayaa waa dhinaca xuduudda badda iyo bariga iyo waliba dhinaca cirka sida adduunyada kaleba ay u ilaashato waxaa jira in dalku uu ku dadaalo in ay noqdaan ummadiisu ummad midaysan oo iyadu iskaashata oo wanaagga u heelisa kana hortagta wixii fadqalala ah ee dhinaca xuduudaha uga imanaya laakiin Soomaaliya marka la fiiriyo waqtiyadii ugu dambeeyay xaalku ma aanu qumanayn nabadgelyo ha jirto colaad ha la soo maro laakiin waxaa jiray dad badan oo iyagu marka aan u muuqanin inay yihiin dalka iyo dadka u helinaya laakiin mansabkii siyaasadeed ama wax ka soo qabtay ama iminka haya waxaa la gudboon shakhsiga Soomaaliyeed inuu kala garto marka uu mucaarad yahay iyo markuu muxaafid yahay marka arrin ay u dhaxayso Soomaali dhexdeed iyo marka aanay u dhaxayne Soomaali iyo waddan kale oo ajnabi ah ama shisheeye ay ka dhaxayso Soomaalidu waxay tiraahdaa media u dambeeyay markaasuu yiri waa ka hadda la siisido maanta arrinka taagan muxuu yahay ee dalka Soomaaliya iyo dal kale waa dalka Kenya oo isagu sheegtay in biyaha Soomaaliya kala qaybiya iyo Kenya qaybo kamid ah iyagu ay iska leeyihiin taasina ay noqotay in dacwad loo gudbiyo maxkamadda ku taala magaalada Hague oo dawladda Soomaaliyeed ee xilliga jirtay dawladdan ka horeysay ay gudbisay dacwadaasi waxay tahay mid weli laalan oo socoto oo jawaabteeda la sugayo dawladda iminka jirtaana ee federaalku halkii ayay dacwadii ka sii waday arrintaasi waa qadiyad u dhaxayda Soomaaliya iyo Kenya Soomaali dhexdeedna uma dhaxayso Kenya dhexdeedna uma dhaxayso mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee xilka haya maxaa la gudboon in ay qadiyada Soomaaliyeed ay difaacaan kuwa xilka hay jiray maxaa la gudboon inay qadiyada Soomaaliyeed ay difaacaan kuwa mucaaradka maxaa la gudboon inay qadiyada Soomaaliyeed ay difaacaan arrinku ma taagna dawlad iyo muxaafid gudaha ah ee waxa uu taagan yahay dal iyo dal waxaa jirta sheeko ah geedkii muxuu yiri godin yahay ima aadan goyseen haddaan gabalkay kugu jirin taa waxaa loola jeedaa haddii aanay jirin dad Soomaaliyeed oo iyagu hagardaamo ku wada iyo xagaldaacin danaha dadka Soomaaliyeed inaan dal kale ajnabihi aanu waxba ka samayn karin dalka Soomaaliya laakiin waxay u muuqataa inay jiraan kuwa Soomaaliyeed oo muuqaalka Soomaali ka ah laakiin gudahoodu uu yahay kuwa qadiyadaha Soomaaliyeed ka soo horjeeda lama magac dhabin hebel iyo hebel laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxay wararku sheegayaan inay jiraan dad iyaga loo arki karayo in wadaniyadu ay ku yar tahay oo markaas arrintu aanay wanaagsanayn dawladda Soomaaliyeed marar badan bay ka hadashay dadka kale siyaasiyiinta xilalka aan haynin laakiin siyaasiyiin hore waa ka hadleen aqoon-yahan waa ka hadlay odayaalna waa ka hadleen bulshada qaybaheeda kala duwanina way ka hadleen waxay ka midaysan yihiin in dalka Soomaaliya qadiyadiisu ay tahay qadiyad Soomaaliyeed oo ay tahay dadka Soomaaliyeed inay daafacdaan warqad ayaa jirta soo baxday xagga xukuumadda Soomaaliya ee federaalka taasoo ka sheekeynaysa in ay waajib ku tahay in ay fulinayaan awaamiirta ah inay dalka iyo dadka difaacaan hadday yihiin dawladda waxay u sheegayaan shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee aqoonyahanka Soomaaliyeed inay laga maarmaan tahay in dalka Soomaaliya qadiyadiisa loo hiliyo marka ay tahay Soomaaliya iyo dal kale waxaa jira warar sheegaya
in dadka qaar loo arkaya maalmihii ugu dambeeyey sida qoraalka ku qoran inay ku mashquulsan yihiin waxaan danay ugu jirin dalka iyo dadka si taas haddaba loo ogaado ayaa waxaa la fahamsan yahay in shakhsiyaadkaasi ama ha noqdaan kuwa hadda xil haya ama kuwa xil hore u soo hayey in dastuuriyan ay dawladdu sheegtay in wax laga qaban karo lagana qaban doona dadka soomaaliyeed ayaa barnaamijkani waxa uu yahay mid ay uga qaybgelayaan soomaaliya iyo kenya arrinta badda sideed u aragtaan soomaaliya wakhti badan bay ku bixisay in dacwaddaasi ay noqoto mid lagu guulaysto si loogu hiliyo xuduudaha badda iyo berriga oo khayraadka dalka looga faa'iidaysto laakiin waxaa loo arkaa sida ay wararka qaar sheegayaan inay jiraan shakhsiyaad aan soomaali ahayn oo iyagu sida kenya oo kale duulaan ku ah iyo shakhsiyaad soomaaliya oo iyagu laftoodu garab siinaya arrintaas oo soomaali ka dhana